rasaasta aad maqlaysaan uma dhaxeeyaan laba dawladood amaba sidoo kale shabaab iyo dawladda waa dagaal culus oo u dhaxeeya laba qabiil oo walaalo ah ama laba beelood oo walaalo ah oo wada dega galbeedka degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan maalintii saddexaad ayuu dagaalkan galay iyadoona dagaalku ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa waxaan u dhaxeeya laba beelood oo walaalo ah oo wada dega Jallaqsi hayeeshee ma jirto ilaa hadda cid kala dhex gashay labadaasi beelood oo markaasi wada dega degmadaasi ma jirto ciidamada dawladeed iyo sidoo kale kuwa qabaa'il oo isu taagay xalinta dagaal beeleedka ka dhacaya degmada Jallaqsi maalintii saddexaad isub urursi aad u xoogan kadib waxa degmadaasi ka bilowday dagaal aad u culus laba maalmood ka hor waxaana markaasi dagaaladaasi ugu dambeyntii ay dhaxal siiyeen dadka deegaanka in midba midka kale gurihii deegaankaasi uu ka deganaa in la gubo markii laga saaray halkaasi waxaana hadda gubanaya guryo aad u tiro badan oo ku yaala galbeedka magaalada Jallaqsi iyadoona maleeshiyaad aad u tiro badan oo markaasi labada dhinac ka soo kala jeeda ay isku urursanayaan wali degmadaasi waxaana markaasi midba midka kale uu guulo ka sheeganaya dagaalada ka soconaya degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan degmadan waa degmada inta badan uu ku faano madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ee muddo dhaafka ahi waxaana markaasi la sheegaa amaba uu tilmaamaa in uu markaasi ku faano in uu ka soo jeedo ama uu ku dhashay degmada Jallaqsi laakiin maanta Jallaqsi waji noocee ah ay leedahay xilli uu markaasi talada dalka uu wali gacanta ku hayo degmada Jallaqsi oo ah degmo qadiimi ah horumar kala duwan xilligii dawladda dhexe sameeysay tan iyo burburkii waxa gacanta u galay maleeshiya beeleedyo ilaa 3 beel ka soo jeeda waxaan markaasi marba midka kale uu bilaabaa aana qabiil darteed in ay isugu dhacaan mana jirto nidaam dawli ah oo deegaankaasi ka jira beelaha wada dega degmadaasi ayaa haatan waxaa ka dhex qarxay dagaal aad u culus oo aana qabiil salka ku haya dad badan ayaa la laayay oo haween caruur iyo sidoo kale dad waaweyn isugu jira sidoo kale waxaa la gubay guryaha magaaladaasi marka laga reebo mid ka mid ah beelaha degmadaasi oo aan dagaalku aan qayb ka ahayn oo xaafadaheedu ay nabad yihiin laakiinse meelaha kale waxaa ka muuqanaya burbur iyo sidoo kale gubitaan la gubayo goobihii ganacsiga iyo sidoo kale guriyihii deegaanka ahaa waxaana isa soo taraya baaqyada ka imaanaya dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo colaadda ka taagan degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan oo gashay maalintii saddexaad